بسم الله الرحمن الرحيم داوديال kusoo dhawaada barnaamijka Martsoor toddobaadkan waxa martino ah oo aan ku faraxsanahay inuu nala joogo jaamac xirsi faarax oo xubin ka ahaa shantii xubnood ee guddiga ansixinta iyo xalinta khilaafaadka ee baarlamaankii u horeeyay ee Puntland jaamac waxa uu xilal kala duwan oo wasiiro iyo guddiyo uu madax ka soo noqday oo ka qabtay Puntland waxaana u dambeysay oo dhawaan uu iska casilay gudoomiye ku-xigeenkii guddiga doorashooyinka ee Puntland oo noqday guddiga doorashadii u horeysay ee qof iyo cod ah Puntland ka hirgeliya tan iyo asaaskeedii jaamac ku soo dhaw barnaamijka Martsoor marka hore waxyaabo kala duwan baa lagu tilmaamaa Puntland waxa rasmiga ah oo keenay in xilligaas ay dadkii deegaanadan ku fakaraan in maamulkii waqooyi bari la dhiso ama Puntland maxay tahay ujeedada rasmiga ah ee ka dambeysay in Puntland la dhiso waa run dad badan baa ka hadla siyaabo kala gedisanna u sheega wuxuu mar haddii aadan joogin oo aadan goobjoog ka ahayn dee waxaad ka sheegtaa waa malawaal weeye anu waxaan ku faraxsanahay goobjoog ka ahaa guddaascinta baarlamaanka u horeeyana aan ahaa macnaha asaasayaashii wey iyo siixayaashii inaan diwaankii Puntland wax ka siixay waxaan ka sheegaa marka anigu maaha waa la yiri iyo waan maqlay maaha saddex qodob baan ku soo koobayaa qodob waxa weeye koob iyo sagaashankii markii dowladda dhexe Soomaaliya burburtay dadkii Soomaaliyeed waa kala irdhoobay wax dibadaha aada dawladda dariska ah iyo wax dhulkooda ku soo laabtay bay noqdeen waxa la isku dayay in dib dowladda Soomaaliya loo yeegleelo oo Soomaaliya soo celiyo ilaa way kala qaxday shirar badan baa la qabtay waxa lagu qabtay meesha la yiraahdo Djibouti Ethiopia Masar waxa ka suurtageli waayay kii u dameeyay Southern baa looran jiray Ethiopia iyo Masar buu waa fashil waxa ka horeeyay shir gudaha ahaa SDF ay ku qabatay saddexda gobolada bari looran jiray hormoodayaashii ama odayaashii SDF iyo siyaasiyiintii iyo waxgaradkii lagu qabtay magaalada Qarlo 1995 shirkaas waa fashilmay ujeedadu waxay in maamul loo sameeyay SDF dabadeedna halkaas maamul saddexda gobol ka soo baxo kaasina waa fashilmay siyaasiyiintii xilliga SDF hawsha waday oo shirarkii Soomaaliyana soo fashilmay joogay kaana ogaa waxay go'aansadeen in maamul loo dhiso goboladan oo maamul la sameeyo kaasu taasay oo nooc min xukum raadis ah xaqiiqaas weey maadaama shirkii Qarlo SDF suurtagali waayay kii Soomaaliyeedna la waayay in maamul gobolada kale ay qayb ka yihiin oo shacabka la isu dhan yahay dadka deegaamada wadaga in halka maamul qaab xukum wadaaga oo taliska iyo awooddu ka imanayso SDF ama hindisu in la asaaso taas ka soo ahaa qodobka labaad wuxuu ahaa si loo helo maamul sharciyeysan oo fulintiisa leh oo kala dambeyn iyo sharci fulin leh dabadeedna awood dhaqaale lagu sameeyo awood kala dambeyn lagu sameeyo awood ciidan lagu sameeyo power in maamulka aan la helo taasuna waa taaway taas saddexda kale waxay ahayd in markii inta la helo in Soomaali weyn la aado laguna raadiyo qaab maamul federaalist hoos ka soo dhismayna laga qayb qaado iyadoo awoodda taalo goboladan lagu xisaabtamayo waad mahadsantahay jaamac xilligaas waxaynu ognahay oo Soomaaliya 98 oo Puntland la dhisay in shirar ay jireen Ethiopia qayb lagu qabtay meesha la yiraahdo Masar madaba dawlado ajnabi ah inay ku lug lahaayeen aasaaskii Puntland haddayse ku lug lahaayeen kuwa ahaayeen dawladaha rabay in halkaan waqooyi bari Soomaaliya ama dhuludug maamulkan la dhiso arrintaas maxaad kala socotaa shirkii Djibouti lagu qabtay ee lagu soo aasaasay dawladda Cali Mahdi dowladda Soomaaliyeed ma dhaafsanayn shirkii Ethiopia lagu qabtay oo lagu heshiisiinayay urradii siyaasadana in heshiin Soomaaliya ma dhaafsanayn
shirkii qaahirana ma dhaafsisnayn oo fashilmi jiray laakiin markii madaxda SDF ay arkeen inaan shirarkii waxba ka suurtagelin Soomaaliya dawlad dhisantana aanay dhaweyn hindisahaas Itoobiya baa qayb laga soo geliyay waxayna qayb ka noqotay tala ahaan iyo hadday waxtar laga heli karaba in maamul loo sameeyo saddexdan gobol ee ka soo jeeda koonfur bari la oran jiray intaan la gaarin fikirkii dheeraa oo la baahiyey marka Itoobiya baa qayb ku lahayd waad mahadsan tahay waxaan rabnaa inaan ogaano maadaama guddigaas ansixinta iyo xalinta khilaafaadka qayb ka ahayd baarlamaankii u horreeyay ee dowladda Puntland yeelato muuqaal ku lahaa baarlamaankaasi oo ekaa horta baarlamaanka u horreeyay waa run ansixinta baarlamaanka iyo khilaafaadkan ka mid ahaa 5 nin baanu ahayn inta badan waa dhinteen waxaan maanayaa 3 nin baa ka nool in halku joogay Maxamed Axmed Kulan way wasiir dawlaha wasaaradda arrimaha gudaha weeye iyo Xuseen Xaashaan umayna dowladda federaalka in guddida meelaha ku jiro iyo aniga xilli adag bay ahayd xilli wax laga yeelayo bay ahayd baarlamaankan kuwa dambe ka duwanaa sababtoo ah xukuumadda ka horeysay ilaa baarlamaanka xukuumadda dooratay xukuumadda xilliga ergaa lagu doortay dabada guddidaas baa la magacaabay waxa la yiri shacabkii ka soo dhex saara 69 xubnood oo baarlamaan ah dib badan baa loo soo maray waxaan ka xasuustaa dadku ma aqoon baarlamaanka mana ay fahansanaayeen ka dhaadhicinta in maamul dawlad la sameeyo baarlamaanna loo baahan yahay baarlamaanku noqonaya xeer dejinti iyo sharciga inoo hayn lahayd fahan dheer bay u baahnay waxaan ka xasuustaa 5 gabdhood baa lagu soo daro gabdhahana dee beriga way iska adkeed in gabadh masab ee loo hibeeyo waxa la 5 gobol ha laga soo saaro 5 gabdhood ismada Xumar Jacno ahaa Islaan Maxamed Allah u naxariistay isma guddiya xukuumadana Cabdullaahi sallallahu alayhi naxariistay iyo goliisa wasiirada 5 gabdhood baa way la soo saaraa dib badan baan ka maray laakiin waxaan ku guuleysanay inaan 5 gabdhood soo saaro way baarlamaanka u horreeyay ay ka dhex muuqdaan 5 gabdhood oo 5 gobol Puntland ka soo jeeda waxaan kala xasuusnayaa baarlamaankaas waxaanu fokus ka saaray in la rag dawlad yaqaan oo maamulka cusubna dawladnimo horseeda mustaqbalka baarlamaanka soo socda ay ku daydaan waxa salfadhi u ahaa 23 oo khabiiriin waaya araga oo dawladda Soomaaliya u soo shaqeeyay waan hebel ku oran karo maanta wada dawli ah waxa kamid ahaa Maxamed Jibriil baa kamid ahaa mas'uul Soomaaliya haysan jiray waxa kamid ah kala jaban in loo oran jiray oo dawladda Soomaaliya ka soo shaqeyn jiray oo reer bari ah waxa ka Cabdullaahi maxaan ku lahaa Cabdullaahi Afalaar baa kamid ahaa waxa kamid ahaa lama shay karan rag ilaa 23 bay ahayd bootaan baa kamid ahaa oo aqalka sare galay Dr. Yuusuf Saciid Madaxi baa kamid ahaa wardu gudoomiye baarlamaan noqday 23 kaasi waxay ahaayeen salfadhi baarlamaanka hadii wax si noqdaan xalliye hadii dawladdu wax si noqdaan xalliye marjac loo soo noqday ahaayeen inta dawladnimo aqoonna ay kaga dayatay intii taqiina ay isla jaan qaadeen waxa markiiba muuqday baarlamaan beteli kara Puntland shacabka Puntland dawladnimada ay ka muuqatay waana talagu soo gaaray intaan khilaafaadkii dhaxmaray maamulka inuu noqdo baarlamaan haga Puntland oo jihaysan waa mahadsan tahay jaamac waxaad tilmaantay baarlamaankaas u horreeyay inay soo galeen ugu yaraan 23 xubnood oo dadkii dawladdii militariga ahayd meesha ka baxday ama dawladihii ka horreeyay rayidka ahaa ka shaqeeyay ah dawlad yaqaan waxaan xusuusanahay Puntland dawladdii Cabdullaahi Yuusuf kadib inuu khilaaf ka dhashay muddo kororsi dawladdu samaysatay haddii aad si fiican wax u maamusheen oo baarlamaankaas aad soo xusheen aad tiri dawlad yaqaan bay ahaayeen qaybo badan oo ka mid ah balna xusuusi waxa keen xagee wax ka khaldameen in muddadaas yar kadib maamulkii uu galo ishaysadkaas iyo muddo kordhintaas iyo xagee bal wax ka qalloocdeen markaas arrinta haddaad xusuusiso horta arrinta ismadu awood bay lahaayeen oo dhaqameedku marjac bay ahaayeen qayb bay ku lahaayeen arrimaha qayb bay ku lahaayeen maxkamadda sarena
qayb bay ku lahayd waxaan uga jeedaa intaan isimada dhaqameedku iyo maxkamadda sare aanay iyagu heshiis wada gelin maxkamadda sare iyo baarlamaanku way ku wada socdeen iyo xukuumadduba maadaama 3 sano aan laga gaarsiin karin aftiin la qaado dastuurkii la sameeyo sharciga wuxuu dhigayaa haddii charterku 3 sano la gaaro in dastuurkii puntland oo dhammaystiran in la sameeyo waxyaalaha ka horeeyana la dhammaystiro markay muuqan weyday waxaa la istusay oo dowladnimo ahaan ahayd oo qaab dowladnimo loo fikiray burburna looma fikirin qabiilna looma fikirin waxaa loo fikiray si aan maamulku inooga dumin aynu horena u soconno waqti fiicanna loo helo in la diyaar gareeyo waqti arrimaha lagu wajihi karo taasaa marka waxay keentay in baarlamaanku ay hawshaa fududeeyaan laakiin waxaa markiiba bilowday dhinaca dhaqanka oo ismadii ay guux bilaabeen iyo maxkamadda la sari laftigeedii oo meesha soo gashay oo aqalka laba wareegtaba laakiin baarlamaankaas ujeedadiisu waxay ahayd in waqti ku filan la helo in dastuur loo sameeyo afti la qaado dastuurka la dhammaystiro jaatarkii laga gudbo dabeedna dowladnimada ay sii socoto ujeedada laga lahaa ma ay jirin tiibaa marka waxaa loo bedelay damac siyaasadeed iyo ismadoo istusay inay de iyagu doorkooda awooddooda inay muujiyaan intaas ahayd arrintaas iyo dagaaladii dhacay kadib heshiis baa la gaaray 2004 dastuur baa la sameeyey waa ay soo socotay sanadkii u dambeeyey madaxweyne Faroole ama 2012 iyadana dastuur baa la garwa lagu sameeyey ergo aan sixisay oo nidaamka Puntland muddada xilhaynta xukuumadda iyo madaxweynaha iyo waxa laga dhigay 5 sano hadda xukuumaddiina soo dhaaftay oo madaxweyne Cabduuli Gaas waxa la hadalhayay in dastuurka la furayo ma kula tahay weli inaan Puntland ka gudbin arrintii la xiriirtay qabyada dastuurka oo meeshii loo baahnaa uusan joogin waa su'aal muhiim ah weeye laba arrimood oo muhiim ah ishu oo ku jiray charterka baan laga dhabayn mid wuxuu ahaa in charterka laga gudbo dastuur dhammaystiran loo gudbo ma ay dhicin oo waa tadee markii dambe 3 sano ku dhamaatayba midna waxay ahayd in dadkan la gaarsiiyo hal qof iyo hal cod labadii midna ma dhicin hase yeeshee afti socotay kadib dowladdii wadaagga ahaydoo jarlacaddii ku soo galay madaxweynihii cadde muuse baa dastuurkii la bilaabay waxaa dhammaystiray dowladda cabdiraxmaan faroole 2012 afti loo qaaday dastuurkiina la dhammaystiray shacabka beriga marka baarlamaanka la sameynayay xubnaha dad badan baan baarlamaanka ka qayb qaadan oo qayb ka helin oo dulmi baa ku jiray meesha wixii waa la soo koobay dadkii lama wada deeqsiin laakiin dad badan oo dee ahayd in la siiyo xubnaha bar laga siiyo oo qabaayil ka mid ah Puntland baa waxaa lagu qanciyay dastuurka marka la sameeyo dastuurka la furaya dastuurkaas wuxuu ogolaan doonaa in dadka la wada gaarsiiyo qaabka baarlamentariga ama laga gudbo oo loo gudbo hal qof iyo laga maarmaba tamaayeen halka marka waxay keentay in 5 sano dastuurkii uu noqdo lana furi waayo beelihii qatanaanay saa ku qatanaadaan oo dastuurkii aan la furin intii horena ay xajistaan maxaan ku raday hal qof iyo hal codna aan marka aan la gaarinba oo isku daygii marka laga soo gudbo Cabdiraxmaan Faroole iyo hadda dawladdan Sida Cabdullaahi Dani oo 3 degmo hadda ay qabsoontay doorasho hal qof iyo codaha hadda dabcan waa socotaa laakiin dee aan weli wax la gaaray aan ahayn xasantahay jaamaca arrinta la xiriirta ismihii Puntland iyo nidaamkeeda maamul ama dawladnimada waa mid soo taxnayd hadda maalmahan waxa lagu jiraa sanad guuradii 24aad ee aasaaskii Puntland waad ogtahay dhawaan waxa baarlamaanku ay ka hadlayeen oo ay diideen maxkamaddii sare xubnihii garsoorayaasha maxkamadda sare oo madaxweynuhu soo magacaabay
24 sano garsoorka Puntland muuqaalka uu leeyahay maxaa ku tilmaami kartaa horta intaan garsoor ka hadlay waxaan ka hadlayaa dowladnimada 24 sano ee Puntland ay jirtay waxa mudana aan qaan gaarin dowlad wanaag kuma qaan gaarin oo wali ma ay muuqato dowlad transparent accountability wada xisaabtan lama gaarin dhaqaale dalkan iyo dadkan loo soo saaro oo ku filaada lama gaarin amni sugan oo dalkan oo dhan gacanta ku qabtana lama gaarin garsoor cadaalad ah oo eeg dowladdu waa saddex weeyaan waa xukuumadda baarlamaanka iyo garsoorka waa check balance weeyaan garsoor balansiga buuxiya deelaha waxba ka dhimana waa naga maqlayna waxaad moodaa marka 24 sano in hadda dib la leeyahay ciidankii Puntland baa loo reform lagu sameeynaya shaqaale baa reform lagu sameeynaya systemkii maamulka dhaqaalaha baa la hagaajinaya maxaan ku rahday garsoorkii baa dib loo hagaajinaya halka waxa kaaga muuqda in 24 sano aan la gaarin macnihii ugu weynaa ahayd in dowladnimo sax la gaaro iyo system fadhiya waxa soo haray garsoorka waa muhiim weeye meesha cadaalada loo dooranayo weeye maxkamadda sare waa talraba haddii nidaamka dowladda ka soo noqdaana inay qayb ka ahaato dee shacabkana waxaa midig inay qabtiyaa laga rabaa garsoorkii waa tii xasaanadii loo diiday marka wuxuu soo magacaabay haddii dee baarlamaanku awood buu leeyahay haddii xasaanadii u diideen xagadan waxaan jeclaa marka labaad oo dee la soo celiyey in xoogaa dee ninkii madaxweynaha nin oday weeyaan waana madaxweynihii dalka weeyaan siyaasadda waa la isku qaban karaa laakiin dee madaxweynuhu haybadiisa iyo xushmadiisu leeyahay in xoogaa lagu dhowro waan jeclaa ama la yidhahdo walba arrintan hakino balooqsu wuxuu rabo bindimidda ku taag ma fiicne dalkeen yaanu firaaq dastuuriya geline oo garsoorka ah bal odaygii ha lagala xaajoodo iyagiina waa dee odagiina waa soo magacaabay garsoorkii marka mar labaad baa xasaanadii loo diiday طبعا firaaq baa soo baxaya meeshii waxaa muuqata marka in garsoorkii Puntland inaan weli lagu qaacsanayn ama sidii loogu talagalay ee isu dheelitirka ah inay weli meesha ka maqan tahay waa muhiim marka in la helo garsoor dee saddexda golena indha buuxin kara ummadda Puntland wax ka soori kara in la helo muhiim weeye nimanka garsoorayaashana dee wax walba waa leeyihiin haddii ciidka fiican la keenayana dee waa khayr haddii iyaga dee dib loo isugu noqonaya dee baarlamaanka iyo madaxweynaha u taalla laakiin garsoor waa muhiim weeye dalku inuu galo garsoorna xoogaa arrintaas arrin fiican maaha waad mahadsantahay jaamacow Puntland waa gobollo kala duwan oo isu tegay adiguna gobolka Sanaag baad aasaasayaashana ku matalaysa kana soo jeedaa dhawaan gobolkaagii ismadii waxay la shireen madaxweynaha Soomaaliland gobollo kalena waa maqan yihiin 24 sano kadib arrintaas maxaa ku tilmaami kartaa horta askari waa su'aal fiican way horta sideedaba intaa Puntland la aasaasin dadku waqooyi bari iyo waqooyi koonfureed buu kala ahaa intii burburku dhacay dee dadkaas gobollada waqooyi bari daris bay ahaayeen laakiin nidaamka Somaliland 91kii ama 94kii dee qayb kamaana ahayn laakiin dadka qayb galayay waa jireen laakiin meel isimada dhaqanka oo Suudaan Saciid Absal ugu weyn yahay saxiix lagula galay ama heshiis rasmi ah ma aanu jirin طبعا way imanaysaa marka in weli la iska rajo qabo oo dee dhaqankii iyo derisnimadii iyo waxaa weli meeshii sii jira in marka qaab dowladnimada loo fikiro oo weli lagu daba socdo gobollada waa arrin jirta weeye shirka Ceergaabo shirkii hore wuxuu ku bilowday barqaab wada tashi ah
oo arrimaha soo socday inta badan socday bal si laga yeeli lahaa qaab siyaasadeed weji kale u yeeshay waana fashilmay suldaan saciid cabdisalaam baa u soo baxa inuu yidhaahdo wixii aanu meesha u nimid sidaan ma ahayn sidaasi ka duwan bay ahayd mar bayna hoos ugu sii daadego dabeedna fashil baa halkaa ka yimi somalilan iyo madaxweynuhu iyo wasiiradu waxay wateen ma suurtagelin waana loo kala tegey ma oran karnaa jaamac waxaa keenay shirkaas isimadii gobolka Sanaag ay madaxda Somaliland la qaateen iyo gobollo kale oo tabashadooda iyo cabashadooda warbaahinta laga arko sida hadda gobolka Bari oo isimadii iyana ay warbaahinta dhowr jeer ka hadleen ma oran karnaa Puntland 24 sano kadib waxa muuqatay inaan loo sinayn nidaamka xukunka asaasayaashiba ahayd xilal kala duwan baa Puntland ka soo qabatay ma waxaa jiray heshiis ama ha qornaado ama gentleman agreement ha ahaadee intaan madaxweynaha la dooran in goboladan dhul udug ama Puntland la kala qaadqaato oo qabaa'ilka qolo madaxweynaha qaadato qoladiinaan reer Sanaaga gudoomiyaha baarlamaanka iyo aad qaadataan reer Sool iyo madaxweyne ku-xigeenka qaataan dadku is weydiinayaan waxaa soo laabatay Puntland hagbad madaxweynihii kada oday baa tahay asaasayaashii baa ahayd bal arrintaas noo sharax بسم الله أورتا ونصيب درو إن أفلت سنة بعدي إن بنتنا قبلنا مغايشين ولما ستة ماملكم مغايشين قبل قاركونا روتينيان قاركون حال أبوه كجرتو قلت ونصيب درو ويا مدة أنت الواحد ربي أنت لا يقطب وقبل هنا إسحيستان الشعب كينا إسحيستان أورتا تاسو ونصيب درو دعدي ويا maamulka hadda jooga waxa laga rabaa dasa hawlo u xilsaaran dadka bari degan oo cabanayana tabasho la dhigsto wax laga qabto gobolada maqanna waa Puntland meel lagu ogaado kuwa laftigooda sanad ka soo jeedo rutinayaan iyaga laftigoodana waa kuwa la xageysanayo cirgaaba iyo meel wax ka soo socdaane laftigooda wax la iska ogaado tabac laakiin waxaad igu laabataa midaan nidaamka xukunka ah oday asaasayaashii kamid ah baad ahayd ma gentleman agreement baa jiray xagee bal haddii nidaam la samaysto ma faclo looma wada sinaado dadkana ma wada gaadho labana wada mahadiyo horta mid waa kuu sheegayaa ama awoodda ha noqoto dowlad qaybsiga ama xagga dhaqaalaha ha noqoto ama xaggan wax kororsimada ha noqoto waa loo kala badan yahay oo iska muuqata marba laakiin hoos ugu daadego dooni maayaan laakiin taa waxaan kaga tegayaa kole wixii loo sinaan maayo oo cid baa bidida daabkeeda haysa halkaasay marka arrintu inta badan aadaysaay waxaa soo haray arrimahan heshiis Puntland in madaxweyne gobol la qaataan ra'iisul baarlamaanka gobol la qaataan madaxweyne ku xigeenna gobol la qaataan absolutely wax meesha ku jira maahay xeerna kuma jirin charter baa kuma jirin shir la isagii laga wada hadlay ma jirin wax jadwal agreement ma jirin charter wax lagu qoray madaxweyne loo siman yahay ku xigeen loo siman yahay ra'iisul baarlamaan tartamaya sidaa waxa u dhigay siyaasiyiinta hanka lahaa SDF بمدحول الشرحضي هذا اسمه النقطة وضدي بقاضي رئيس مدحول كحيان وحسوا شرحي كحيان كيس يو اس بي هذا عبد الحاشي ها وضدي بمرت رئيس البرلمان كي الدكتور يوسف سعيد مدحول بسوس شرحي هل كي بيمرت سيدي بكو صوتها عيد وحكى بدي شيء ما جرته لكن واحد لو هشيء iyo wax dastuuriya iyo wax qanacada midna ma waa mahadsantahay jaamac waa ognahay 2009kii faroole waxa ku soo dhawaaday General Kijir hadda waa iyada Soomaaliland shirtay dhinaca Sool waa maqan yahay gobolkii marka idinka laftigiinu soo ma oran karnaa siyaasiyiinta goboladaas ka soo jeeda ee qayb baa ku leeyihiin oo si aad bal u garnaqsataan oo la yiraahdo bahasha loo sidaado walina goboladiina keentaan oo cashuur laga keeno oo la xoreeyo oran karnaa eed waxba ku leeyihiin dadkiina goboladaas matalayay oo garow joogay oo dawladda ku jiray wasiirada ahaa xildhibaanada ahaa
horta markaan gobollada isku qaado hadda labadan gobol ee saddexda gobol ku soo darsamay ee awood xukun raadiska ahayd dee sool horta waa maqan tahay waana kuusha system maamul bay ku maqan tahay dadkani waa jireen waana joogeen system maamul bay ku maqan tahay ama dawli ah system maamul baa lagu haystaa lagu qabsaday tan lagii qabsaday waxaa soo haray sanaag waa nugushahay waana dhutinaysaa laakiin waddaan kuu sheegaya annagu waa isku daynay inaannu derbigaa jebinno oo saa sheegtay deelka jiir baa tartamay midna xasuusnow oo waxaa ka horreeyey maxamed cabdixaashi xaggaana waa la iskaga day oo weliba meel fiican buu yimi ilka jiirna meel fiican buu yimi laakiin waxaa jira heshiis runtaan sheegayaa waxaa jira heshiis u dhaxeeya nimankan tolka iyo madaxweynaha bilowgay qaatay inay hadday arkaan in xero loo soo dhacayo inay iska odafeeyaan waad og tahayoo nin kale maxamed cabdixaashi dee waa la isugu shubtay ilka jirna waa la isugu shubtay dadka kale ma isugu shubaan marka la isku daro nimankan madaxweynaha ku laalaabtaa gebigoodoo 12 bay baarlamaanku leeyihiin dadka kale ma isugu shubaan 12 waa la qaybsanayaa inta kale u qaybsamayaan laba loo qaybinayaa maskaxdaasaa meesha taalla marka dadkii kale ma aragtay absolutely haddii bari iyo sanaag iyo sool kama soo qaadata ila badaba baa degee haddii xildhibaanada la isku daro dhowr afarta waa gaaraya hadda intaas isu tagto isbeddel bay samayn karaan laakiin caqligaasi ma jiro waa la haystaa waa ka maqan yahay meesha 1998 shaxdi la dhigay waa ilaa hadda socota cid wax ka beddelsaana waa aragtay wax laga beddeli karaa iyadoo la jabiyo derbigaas si loo jabiyana waa aragta jaamaca waa mahadsan tahay dhowaan baarlamaanka puntland markii ugu horreysay oo warbaahinta laga arko baarlamaankii oo xisaabtamaya oo dawladdii su'aalo weydiinaya oo arrintaa ka war horta baarlamaanka shanaad shalay ma ahayn kalfadhina uguma horrayn ilaa xilligii la doortay oo la soo xushay dee waa joogeen isla xisaabtankaasi dastuuri weeye shacabkii wakiil weeye inay xukuumadda la xisaabtamaan inuu socdo bay ahayd iyagana waxaa la ogaan lahaa inay yihiin dee baarlamaan xulasho ah oo soo jeedo aqoonteeda weernimadeeda oo xisaabtamaya oo shacabka wakiilka ah xukuumadda waa biqi lahayd in la xisaabtamaya ogaan lahayd wax badanna waa soo bixi lahayn wax haddii xumaadeenna way hagaagi lahaa wax wanaagsanaana way si wanaagsanaan lahaayeen waxaa soo hadda xisaabta ay bilaabeen waxaan isleeyahay xisaabtu 2 meelood bay ku jirtaa siyaasiyan jaangooynteeda iyo jahanteeda madaxweynaha iskale iyo ku-xigeenkiisa waxaa u fuliya oo u xilsaaran wasaaradda wasiirada halkaa xisaab baa fadhida haddii dalka amnigiisa wax ka xumaadeen haddii dhaqaalihiisii wax ka xumaadeen haddii siyaasaddiisii leexatay haddii shacabkii wax si noqdeen halkaa xisaab baa ku jirta inay si sax u galaan bay ahayd oo halkaa beegsadaan ilaa madaxweynaha ilaa wasiirkiisa wasaaradda siyaasadda halkaa wax ka soo bixi lahaa dalkii hawlihiisii loo idmadee ma socdeen mise waxbaa ka xumaaday xaggees wax ka xumaadeen taas waa taa tan labaad waxay kula gashaa isla xisaabtanku dhinaca dhaqaalaha wasaarad baa u xilsaaran iyadaana jaangoysa iyadaana maamusha taana dee wasaaradda maaliyadda baa looga baahnaa inay baarlamaanku si sax intay u abbaaraan dhaqaalihii waddanka soo galay hadduu macaawino ahaa iyo hadduu kabis ahaa iyo hadduu miisaaniyad ahaa iyo haddii shari lagu galay iyo haddii meel la aaday inay si sax u guda galaan hadda miyaada u arag in si saxa loo abbaaray baarlamaanka wasiiradii ugu yeeray buu wasiirka maaliyaddu ka mid ahaa xisaab xirna waa la sameeyey oo baarlamaanku waa meel mariyeen taa maxay kugu muuqan weyda jaa sakari wasiirada la xisaabtamayay laba wasiiro wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka caafimaadka
waxaa la gaarsiiyey in wasiirka caafimaadka la yidhaahdo farmasiyada kininkaasaa yaalla ka war iyo malabkaasaa yaalle wasiirka arrimaha gudaha waxaa la gaarsiinaya wasaaraddaadii adigu see tihiin halkaasaa la gaarsiiyey maxaa wasiirka maaliyadda loo weydiin waayey war waddankan cushuurtan waddanka laga qaado oo miisaaniyadda lagu ansixiyey oo jirjineeri u xusaaran tahay halkan dhig waddanka maxaa macaawino soo galay hawlo amni baa dhacay lacagtu waxay ka timi doorashooyin baa dhacay lacagtaas waxay ka timi haddii aanay wasaaradda aanay soo marin dee wasiirkii maaliyadda tahay mucaawin ahay ma meel kale xaggee ka timi maxaa loo weydiin waaye wasiirkii maaliyadda tahay dhaqaale abuur baad leedahay dhaqaale raadin baad leedahay ilaalin baad leedahay diyaarad baad saaran tahay shirar baa waddamaad tagtaa dhaqaalaa baxaya dhaqaalaas waxay ka yimaadaa ma jeebkaaga ma khasaduu ka baxaa maxaa isaga loo weydiin waaye waayo loo weydiin ilaa hoos loogu socdo wasaaraddu iyadoo xaragoonaysa bay soo gashay meesha xaragoonaysa way ka baxday runta taa wey tahay dhawaan waxaad iska cajisay oo adiga iyo gudoomiyahaagiba jaamac waa maasan tahay dhawaan waxaad iska casishay gudoomiye ku-xigeenka guddiga ku-meelgaarka ah ee doorashooyinka Puntland oo adiga iyo gudoomiyahaagiba waad is casisheen doorashadii qofii cod ahayd saddexdii degmo oo aad idinku guddiga ka ahaydeen laba degmo gudoomiyaashu way doorteen degmada Eylna ilaa hadda dawladdu waa ka qaban laadahay in golihii deegaanka la fariisiyo oo is doortaan dawladdu waxay ku celcelinaysaa in doorashadii qofii codka ahayd ay socoto ma kula tahay jaamac in qofii codku uu socdo Puntland dawladdaanna ay meesha sii joogto ilaa doorashada laga gungaaro oo degmooyinka harsan oo 47 gaaraya la wada qabto sidaas lagu dhamaystiro gudoomiyihii guddiga ku-xigeenkiisa baad ahayd arrintaas bal maxaad nooga sheegi kartaa gaasakare waa maasantahay horta dee waa run anagu January 2022 waxaan iska casilnay xilkii guddiga doorashooyinka ku-meelgaarka ah aniga gudoomiye guuleed waxaanu iska casilnay dee waa ka hadal warama dib ku noqdo midda meeshana waa ka tagnay saaxiibadii aad jooga hawshii wada waa isleeyahay marka duruufaha jira la eego aan la eegin ama caqabadaha jiro la eegin tiimkan aanu meesha aanu soo wada shaqayn farsamo ahaan iyo weelaysi ahaan waa ku filayay ama si barnaamijka u dajiyeen waa ku socon karaa laakiin duruufaha ku xeeran idu waa arrin kale laakiin intaan ogahay aqoon ahaan iyo farsamo ahaan waa ku filayeen wayna ka goonaan kartaa wadadaan soo wada shaqayn oo aanu waa noo soo wada qaanay baxay waxa soo haray saddex degmo wasaaradda arrimaha gudaha ku taala hadii laba la fariisiyey tan ayna waan hawshida dhamaystiran taana wasaaradda arrimaha gudaha baa laga rabaa waxa soo haray dawladda iyo siyaasadeeda taas waa arrimo siyaasadeed haddii dawladda damacsan tahay inay barnaamijka mustaqbalka ugu xubsiibato arrin kale oo iyada danteeda taas ummadda reer Puntland baa waayo waqti baa la joogaa isbedel la raadinayo oo waxbaa loo gudbayaa hadday taa markeedu ay iyadu ku fakarayso waa arrin kale weyn laakiin waxaan isleeyahay xilligeedii lama joogo jaamac waa mahadsan tahay arrintan aad tiri dawladdu waxay hadday iyadu u dan leedahay inay barnaamijkan wax kale u isticmaasho iyaday u taallaa reer Puntland waxaa ognahay markii u horreysay baa waxaa la gaaray in dadku codkooda dhiibtaan siyaasiyiintiina bannaanka jooga maxaa ku diidantihiin madaxweyne Dani iyo nidaamkiisu haddii ay noo dhammaystiraan degmooyinka golayaasha deegaanka oo shaqadan one man one vote-ka noo dhammaystiro meeshay rabtaa la gaartee maxaa hadday arrintaas sooma ah ahlan wallahi horta barnaamij muhiim ah weeye inuu guuleystaan doonayna weeye horta saddex degmo hordhac u qabanay weeye haddana de qolyahana way wadaan laakiin taan kuu sheegaya waxay tahay meeshan xisaab baa taalla xagbadii baa taalla xagbaddu hadday raalli ka noqonayso annaga waxaa naga galay oo sidaa loo gaadhay hal qof yaal cod laakiin u malayn maayo ninana inuu shaatigiisa gashanayo guud ahaan barnaamijkii martisoor toddobaadkan waa naga intaas waxaan u mahad celinayaa oo marti noo ahaa jaamac xirsi faarax
oo xubin ka ahaa guddigii u horreeyey ee ansixinta iyo xalinta khilaafaadka ee baarlamaankii koowaad ee dowladda Puntland. Jaamac waxa uu soo noqday wasiir iyo boosas kale ayuu Puntland ka soo qabtay. waana mahadsan yahay inuu barnaamijka toddobaadkan marti noogu ahaa anigoo Zakariya Nuur Faarax ayaan la socotiinayay. nabadgelyo. ma ogtahay macmil in akoonka Sayfin akoon oo ka mid ah akoomada Salaam Bank aad dhigan karto lacagaha adigoo jooga gurigaaga goobtaada shaqada iyo meel kastaba waxaadna ku dhigan kartaa adigoo maraya habkan fudud fadlan garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bangiga xidig lacagta 4 gees Sayfin akoon waa koonto dhigaal ah oo macmiilku ku keedsan karo lacagihiisa si fudud waxaadna kala bixi kartaa adigoo taga xarumaha bangiga oo kaliya ku keedso lacagahaaga koontada dhigaal ee bangiga Salaam